السلام عليكم. صح مواجهة عقبات dhanka luqadda Ingiriiska kugu adag tahay inaad ku hadashid luqadda Ingiriisiga amaba marka qofku kugula hadlo luqadda Ingiriiska adigoo fahmaya waxa uu qofkaasi yiri ma kugu adag tahay warcelintu ama si guud ma u doonaysaa inaad luqadda Ingiriiska barato isla markaana ay ku dhigaan macallimiin native ah oo luqadda u dhalatay saaxiibayaal dunidu maanta waxay noqonaysaa hal tuulo dadka joogan ay ku wada hadlayaan hal luqad waana sababta keentay inay kor u kacdo baahida loo qabo luqadda Ingiriiska muuqaalka maanta waxaan ku sharxi doonaa habka fudud ee casriga ah ee aad uga baran karto luqadda Ingiriiska masjidkeena Yola dhamaadka muuqaalka waxaan kugu sheegi doonaa insha Allah hab fudud oo aad ku heli kartid discount weyn ila joog ilaa dhamaadka muuqaalka ugu horreyn Yola waxaad ka helaysaa dhammaan levels-ka luqadda حتى هدي أنا ABC أقول وحنكون ديارنا level كليا beginner كاسو aad ku baranaysid luqadda Ingiriiska asaasiyaad keeda ayna ku dhigaya macallimiin Soomaali ah level kaas waa ABC level waxa ku xiga level kale oo elementary intermediate advanced dhammaan saddexdaas level waxa dhigi doona macallimiin native ah oo u dhalatay luqadda saaxiibayaal caqabada ugu badan ee ay wajahaan ardayda Soomaalida ah ee dhigata jaamacadaha ama secondary ama doonaya inay shaqeystaan oo ku hadalka luqadda ama qorista luqadda si loo xalliyo caqabadaasi waa sababta ayuu leen u abuurtay koorskan Ingiriiska koorskan waxaa dhigaya macallimiin native ah waxaa heli doontaa xiisado live oo Zoom ku baxaya kuwaas oo fursad ugu heli doontid in aad macallinka la samaysid practice English speaking oo classku waa English to English waxaa ku khasban tahay markuu macallinku su'aal Ingiriis ku weydiiyo inaad Ingiriis ugu jawaabto runtii waa khasab ku hadal maadaama ma jirto si kale la isugu fahmo aan Ingiriiska ahayn waxaad sidoo kale heli doontaa casharo recording oo duuban kuwaas oo ku baran doonta grammarka, vocabulary-ga iyo pronunciation-ka ama sida erayada loogu dhawaaqo. Dhammaan casharadaasi recording-ka ah waa kuwa ku jira website-keena ee aan ahayn kuwa lagu soo dirayo Telegram ama WhatsApp. Waa kuwa loo habeeyay si casri ah oo isku xiga isla markaasna cutub kasta marka aad dhamaysid waxaad u tagi doontaa practice quiz ah si loo qiimeeyo fahankaaga. level kasta wuxuu soconayaa 2 bilood bar ilaa 3 bilood wuxuu qof kasta oo soo enroll galay helayaa casharada recording-ka xiisadihii live-ka iyo marka uu dhameeyo test laga qaado certificate of completion qofka dhameeyo ilaa iyo levelka u sareeya advanced-gana wuxuu helayaa diploma luqadda ah oo hal sano ah saaxiibayaal class kasta oo online ah waxa uu leeyahay caqabad waxa laga yaabaa ardaydu inay ku caajisaan ama ay soo xaadiri waayaan xiisada waana sababta aan u keenay xiisada la WhatsApp class taasoo ardayda WhatsApp ku jirta oo isugu jirta Soomaali ajaanib levelada qaybtood ay ku sameyn doonaan practice writing-ka sidoo kale waxaa xusid mudan in classkaas WhatsApp dhexdiisa ah ardaydu u practice kula sameyn doonaan macallinka dhiga levelkaas ugu dambeyn Yola waxa ka baxay tobanaan ama boqolaal arday ah oo kala joogta daafaha dunida iyo dhulka Soomaalida waxa ka mid ah Cabdullaahi wuxuu aad u xiisayn jiray inuu helo scholarship laakiin caqabada ugu weyn ee qabsatay waxay ahayd aqoonta la xiriirta luqadda Ingiriiska iyo shahaadada IELTS-ka waana sababta uu ugu soo biiray Yola kadib markuu dhigtay levelada advanced-ga sidoo kale waxa uu diyaariyay IELTS preparation certificate-kiisa IELTS preparation-ka wuxuu ugu fariistay imtixaanka Duolingo la yiraahdo waana uu ku baasay Cabdullah ugu dambeyn wuxuu ku guuleystay scholarship dalka Ireland waxaana uu diyaarinayaa hadda heerkiisa labaad ee waxbarashada ama master koorskan wuxuu anfacayaa qof kasta oo ay ka go'an tahay inuu juhdi bixiyo qof kasta oo diyaar u ah inuu barto luqadda Ingiriiska ugu dambeyn si aad ugu soo biirid koorskan ugana faa'iidaysatid discount-kan waxaa ku soo qodhaa October 2023 kadibna qofka kula hadlaya wuxuu kuu sheegi doonaa discount fadlan ha ilaamin waa promo October 2023 maasanidin